madaxweynaha maamul goboleedka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa si weyn u taageeray Allah u naxariistay dilkii madaxweynihii dalkaasi Iran Ayatollah Ali haddaba iyadoo dad Soomaaliyeed ama maartay muslimnimo ay sheeganayaan inay ku farxaan nin muslina dhimashadiisa ayaan rabaa daawade uu ugu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa sidoo kale halkan kula wadaagi doona sidoo kale qodobada xiisaha leh aad caawa halkan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ugaaska beesha Ciise ayaana ballan qaaday in gacan bira ay ku qaban doonaan gaadiidka la sheegay inay hubka u geynayaan maleeshiya beeleedka beesha Samaroon ee ay markaas ku sugan yihiin deegaano ay ku wada dagaalameen beesha Ciise waliba sidoo kale beesha Samaroon sidoo kale qodobada xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaan Abiib oo ka soo horjeestay beesha Samaroon si weynna markaas ugu soo horjeestay dilkii loo geystay hogaamiyihii dalkaasi Iran Ayatollah Ali isagoo na sheegay inuu tagayo dalkaasi Iran caasimadiisa Tehran isagoo halkaasi sheegay uu markaasi uu safka u lixigsan doono Iran haddaba daawadayaal qodobadaasi qodobo kale oo xiiso leh ayaan saaxiibayaal halkan idinku la wadaagi doonaa haddii ay baraale markaa laga helo soo dhawaada daawadayaal halkan aad naga daawanaysaana waa kanalka Macaash Media haddii taa markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siin share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahasani daawade soo dhawaada hagaag aynu ku bilaawno sida aad ka warqabteen ba waxa xalay ilaa iyo shalayba markaa ka socday bariga dhexe dagaal xoogan oo u dhaxeeyo Israa'iil iyo Mareykan oo isku dhinac ah iyo waliba sidoo kale Iran oo dhinac ah gantaalo iyo waliba sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan ayaana la isku adeegsanayay Allah u naxariistay waxa xalay geeridiisa la xaqiijiyay madaxweynaha dalkaasi Iran Ayatollah Ali kadib markii ay sheegeen Israa'iiliintu inay markaas duqeyn ay ku dileen inkastoo ay dadka reer Iran ay si weyn uga naxeen geeridiisa haddana madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaana markaasi uu sheegay inuu si weyn ugu farxayo duqeynta xoogan ee loo geystay dalka Iran maadaama ay dadka reer maartay Israa'iil ay aqoonsi beenaada ay ka heleen maamulka sheegay inay goosida yihiin ayna sheegeen inay yihiin dalka madax bannaan Soomaaliya ayaana markaasi si weyn u taageeray lixaad lena u muujiyeen Israa'iil kuwaas oo ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin shaqada sida ay u socoto Israa'iil ayaana markaasi duqeyn xoog leh ay ka geysatay dhanka Iran iyadoona Iran jawaab kulul ay bixisay saldhigyadii ugu waaweynaa ay Mareykanka ay ku lahaayeen dalalka Carbeed iyo waliba sidoo kale caasimada Tel Aviv ayaana markaa waqtigan gubanaysa iyadoona dawladaha ay ka mid yihiin Qatar Saudi Arabia iyo waliba sidoo kale waa markaasi Bahrain iyo wadamo kale ayaa ay duqeymo xoogan ay ka geysteen gantaalada ridida dheer ayayna la beegsadeen balse sheekada yaab kale ayaa waxa ay naqatay markii uu madaxweynaha maamulka Somaliland uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in la dilo hogaamiyihii dalkaasi Iran Ayatollah Ali waa markaasi Khamenei iyadoona uu sheegay in ay soo dhaweynayaan dagaal walbo ay Israa'iiliintu ay galeen inay ku guuleysteen ayayna u rajeeyeen walow aan rajeynayno in hogaamiyihii dalkaasi Iran dimashadiisu inaysan dad badan ka dambeyn oo ay hogaamiyaal ay ka mid yihiin madaxweynaha dalkaasi Israa'iil waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo Mareykanka mas'uuliyiin ka tirsanba in ay Iran jawaab degdeg ay ka bixin doonto ayaana rajeynaya in Mareykanka ay ka dhacdo duqeyn xoogan ayaana markaasi laga filayaa Iran iyadoona ay sheegeen muddo 40 maalin oo baraqdiqa taasoo ay loola jeedaan in ay sii socon doonto 40 maalmood oo duqeyn oo ku aadan dhanka ciidamada markaasi ay ka geysan doonaan geesiyaasha Iran balse war lagu naxo ayuu noqday markii madaxweynaha maamulka Somaliland uu sheegay in Israa'iiliintu ay taageersan yihiin shacab iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin baraha bulshada ayaa muuqaalo kooban ay qabsadeen kuwaas oo dadka shacbiga lagu weydiinayo aragtiyadooda ku aadan haddii ay Israa'iil ay taageerayaan ama Iran oo dal muslim ah waxa ay sheegeen in Yahuudu ay doorbidayaan Iran dhulka la simi doono waana wax ugu xun ama markaasi waa maartay waa dhaqan xun oo markaasi dadku siyaabo kala duwan ay ugu falceliyeen ayuu noqday xilli ay dawladda Soomaaliya aysan wali ka hadlin arrinkan balse laakiin dadka shacbiga ah iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta qaar dawladdu ay taageersan yihiin Iran in ay dhulka ay ku sinto Mareykan iyo waliba sidoo kale Israa'iil oo ah
yuhuudda hadda maaragtay baxsadka ay iswaalayso in dhulka lala jaro waqtigan aan kula hadlayba Tel Aviv caadi ayay u gubanaysaa oo hubka noocyadiisa kala duwan ayaana loo adeegsaday dhanka kalena haddii aan fiiriyana ugaaska beesha ciise ugaas Mustaf ayaa gebi ahaanba waxa uu markaasi uu sheegay in gacan bir ah ay ku qaban doonaan dadka dhaqdhaqaaqyada ay ka sameynayaan gudaha markaasi awdal iyadoona gaadiid dagaal oo la sheegay in ay hub noocyadiisa kala duwan ay u gudbinayeen ama ay u qaadayeen dhanka ay waliba sidoo kale beesha ciise oo ay waa maartay beesha Samaroon oo ay dagaal xoogan ay kula jiraan beesha Samaroon ugaaska beesha ciise ayaana ballan qaaday in ay gacan bir ah ay ku qaban doonaan iyadoo taasi markaasi loo arko mid ka mid ah ugaaska uu markaasi uu qaadi doono tallaabo adag iyadoona gaadiid la sheegay inay si dhuumaaleysi ah ay ku soo geliyaan hubka noocyadiisa kala duwan maleeshiya beeleedka beesha Samaroon oo geynaya ugaas Mustaf Maxamed Ibrahim ayaana markaasi sheegay in ay gacan bir ah ay ku qaban doonaan dadka isku dayaya in ay dhibaato ama markaasi aan hubka noocyadiisa kala duwan ay u geynayaan beesha Samaroon iyagoona isku dayaan inay ku dhibaateeyaan dadka ka maartay dadka beesha Ciise u dhashay ugaaska beesha Ciise ayaana la sheegayaa in uu ku dhawaaqay tallaabo gacan bir ah oo ka dhan ah gaadiidka markaasi lagu tuunsan yahay inay hubka ay u geynayaan beesha Samaroon tani waxaa imaanaysaa iyadoona ay horay xiisad beeleed ay uga dhex taagneed deegaanada Awdal iyo Salool hadda wararka markaasi soo baxaya ayaa sheegaya in ugaaska beesha Ciise uu sheegay inaanay ogolaanaynin gawaarida isku dayaya in beesha Samaroon meelo ay jeegaan hubka ay u geeyaan isagoona sheegay in hubkaasi iyo gawaaridaasba ay gubi doonaan dadka shacbiga ah ee gawaaridaas lena waxa loogu digayaa in aysan si dhuumaaleysi ah aysan halkaasi u tagi karin bilaa fasaxna aysan u tagi karin ugaaska ayaa sheegay in ay gebi ahaanba ay gacan bira ay ku qaban doonaan maadaama ay dagaalkan beesha Samaroon ay qayb lixaad leh soo siinayaan hubka noocyadiisa kala duwan u geynayaan balse xaaladda ayaa sii cakirnaan karta beesha Samaroon ayaana sii gali karta xaalad halis ah maadaama ay beesha Ciise ay faantay hubka meesha lagu geynayo waliba sidoo kale gawaari la tuunsan yahay ayayna fariin dheer u diray ugaaska beesha Ciise ugaas Mustaf Maxamed Ibrahim ayaana markaasi si kulul arintaasi u cambaareeyay dhanka kalena xildhibaan Abiib oo ah xildhibaano ka tirsan maamulka Somaliland ayaa si weyn uga soo horjeestay dilkii markaasi loo geystay hogaamiyihii dalkaasi Iran Ayatollah Ali kadib markii duqeyn xoogan lagu dilay maamulka Somaliland uu hogaaminayo madaxweynahooda ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay balse xildhibaan Abiib ayaa gebi ahaanba diiday isagoona sheegay in wax lagu farxo aysan ahayn in maaragtay hogaamiye muslim ah la dilo iyadoo gaala ama yuhuud loo nacamleynayo waxaa la sheegayaa in xildhibaan Abiib oo ka soo jeedo beesha Samaroon oo si cad ah uga hor yimid fikradda ah in la taageero dilka hogaamiyihii in markaasi isla markaasna ay ku muujiyaan mowqifkooda ka duwan ama mowqifka maaragtay ciro ka duwan mid ka lamid ah uu sheegay in marnaba uusan ogolaanaynin in hogaamiyihii dalkaasi Iran lagu magacaabo Ayatollah Ali kaas oo uu sheegay inaanay marnaba ogolaanaynin aysan ahayn wax lagu farxo ay tahay in laga dhiidhiyo shacbiga iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Somaliland maamulka Somaliland ayaa dhawaan ahayd markii maamulka Yuhuudda ee Israel ay ka dalbadeen in ay imaartay aqoonsadaan ama dalka madax bannaan Soomaaliya ay u aqoonsadaan balse taleefanka ayuu Netanyahu uga aqoonsaday in ay yihiin dalka madax bannaan Soomaaliya balse dawladda Soomaaliya ayaa go'aanka ugu dambeeya leh in ay ku go'aan ay xaqiijin karto ama ay ogolaan karto ama ay sii diidi karto dawladda Soomaaliyana mid u dhow hadda uma jeedo oo waa maamul ka tirsan dawladda Soomaaliya maamul goboleedka Somaliland waxa uu maalin walba isku dayaa sidii uu Soomaali inteeda kale uga geey lahaa balse madaxda iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda waxa ay gabiyaanba sheegeen inay marnaba aysan ogolaanaynin in maaragtay maamul ka tirsan Soomaaliya oo isku magacaabo dalka madax bannaan Soomaaliya daawadi haddii aad halkan nala soo gaartay waxaa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad maaragtay YouTube-ka soo subscribe garaysid muuqaalkan la garay si share garay saaxiibadaada la wadaag oo ku meesantiin daawashada muuqaalkan meesanidin